بسم الله الرحمن الرحيم وهبينبا تلاده oo ay arbaca soo galayso 30 bisha December sanadka 2025 oo ku beegan 10ka bisha Rajab sanadka 1447 taariikhda hijriyada ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii qubanaha qodobada caawa barnaamijkan aan idinku haynana waxa kamid ah The recognition by Israel of the Somalia Rendi is illegitimate and it cannot be accepted. waa Erdogan oo si adag u dhaliilay Netanyahu go'aankiisa ku aadan aqoonsiga Somaliland arrintaasi oo ku tilmaamay mid qaanuunka ka baxsan oo aan la aqbali karin dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliya oo isagoo garab taagan dhigiisa Turkiga arrimahani ka hadlay ayaa yiri In our discussion today, we strongly rejected Prime Minister Netanyahu's illegal aggression in recognizing part of Somalia's northern regions as an independent state. Imaaraadkuna wuxuu ku dhawaaqay in ciidankiisa uu kala baxayo waddanka Yemen iyadoo Sacuudigu mar kale uu u qabtay Abu Dhabi in ciidamadeeda 24 saac kala baxdo dalka Yemen. ma dhaba in ciidamo ka socda Mareykanka la geyn doono Ukraine tilaabo Ruushka ku tilmaamay qadcas oo aan laga gudbi karin sheekada ugu dambeysay ee barnaamijka aridii kuma hayaana waxay ku aadan tahay maxaad ka ogtahay dhismayaasha la degan yahay ee isku xiran ee ugu dheer dunida waa sheeko cajiib ah dhammaan qodobadan iyo waliba warar kale oo faahfaahsan ayaan idinku soo gudbinaynaa barnaamijka qubanaha si aad ula socoto oo hesho wararkan barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka caawa waxaynu ku bilaabaynaa xaggaasi iyo waddanka Yemen iyadoo warar kala duwan oo xasaasi ah ay soo baxayaan dowladda isutaga Imaaraadka Carabta ayaa saacado ka hor ku dhawaaqday inay si rasmi ah u soo afjartay joogitaankeedii military ee gudaha Yemen iyadoo wasaaradda gaashaandhigu ay sheegtay in tilaabadan si iskooda loo qaadayo si loo hubiyo badbaadada kooxaha ka shaqeynaya hawlgallada la dagaalanka waxa loogu yeeray argagixisada isla markaasna ay ku timid isku duwid lala sameeyay la hawlgalayaasha caalamiga war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in go'aanka uu ka dhashay qiimayn buuxda oo lagu sameeyay xaaladda hadda jirta taasi oo waafaqsan ballanqaadyada Imaaraadka iyo kaalintiisa taageerada sida hadalka loo dhigay amniga iyo xasiloonida gobolka Imaaraadku wuxuu qayb ka ahaa isbahaysiga Carabta tan iyo 2015 isagoo taageerayay sharciyada Yemen kana qayb qaatay dagaalka ka dhanka argagixisada si loo ilaaliyo amniga iyo xasiloonida dadka reer Yemen ayaa lagu yiri bayaanka wasaaraddu waxay xustay in ciidamada Imaaraadku ay si rasmi ah uga baxeen Yemen sanadkii 2019 kadib markii ay dhamaadeen hawlgalladii loo igmaday iyadoo wixii ka dambeeyayna ay ku koobnaayeen joogitaankoodu kooxo qaas ah oo taageerayay hawlgalka ka dhanka waxa loogu yeero argagixisada geesta kale xiisadda siyaasadeed iyo midda dhanka diblomaasiyadda ee gobolka ayaa ku rusiyay kacday maanta kadib markii dowladda Yemen ay ku dhawaaqday in Imaaraadku uu yahay cadow ciidan isla markaasna ay bixisay war ku aadan in si degdeg ah ay uga baxaan dalkeeda iyadoo dowladda Yemen ay burisay heshiiskii difaaca sidoo kale boqortooyada Sacuudiga ayaa ku eedeysay Imaaraadka tilaabooyin qatar ah oo ka dhacaya Yemen waxaana ay ku baaqday in ciidamadiisa laga saaro dalkaasi Yemen 24 saac gudahooda iyadoo ka digtay wax kasta oo halis gelin kara amniga qarankeeda Abu Dhabi ayaa sheegtay in go'aankan uu muujinayo wali ka go'aanshaha Imaaraadka ee xasiloonida gobolka inkastoo dib u habeynaya doorkiisa arrimahan ayaa sidoo kale waxay ku soo aadayaan iyadoo goordhaweyto golaha wasiirada ee Sacuudiga shir uu gudoominayay boqorka dalkaasi Salman bin Abdul Aziz markale Imaaraadka loogu baaqay in ciidankiisa uu kala baxo dalka Yemen muddada loo qabtay ee 24 saac waxay ku soo kordha wararkaasi waynu arki doonaa xagga Ukraine aynu qoraasana iyo dagaalka Ruushka ay kula jirto madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa daboolka ka qaaday in wadahadallada uu la wado madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ay ku saabsan yihiin suurtagalnimada in ciidamo Mareykan ah la geeyay Ukraine
taasi oo qayb ka ah damaanadaha amniga. isagoo la hadlayay dadka wararka fidiya, Zelensky wuxuu hoosta ka xariiqay in go'aanka ku saabsan dirista ciidamada Maraykanka uu gebi ahaanba go'aankeeda uu leeyahay Maraykanku, isagoo xusay in ciidamada si buuxda ay u hoos imaan doonaan maamulka Maraykanka. wuxuu sheegay in wadahadalladu ay socdaan, isla markaasna isaga iyo Trump ay ka munaashaqoonayaan arrimahan. waxaa kaloo qayb ka ah wakiilo ka socda isbahaysiga ballaaran. tani si daacad haddii aan u xaqiijiyo, madaxweynaha Maraykanka quddiisa ayaa go'aanka iska leh, waana go'aan la xiriira ciidamo Maraykan ah. sidaas darteed Maraykanka ayaa qaadan kara go'aan caynkaasi, ayuu yiri Zelensky oo la hadlayay wakaaladda wararka ee Ukraine Forum, isagoo intaasi ku daray in arrintu weli ay tahay mid horodhac ah. Zelensky waxa uu farta ku fiiqay in Ukraine ay jeclaan lahayd in ay ku aragto ciideeda ciidamo Maraykan ah si ay arrintaasi u noqoto damaanad amni. waxa uu ku tilmaamay inay noqon lahayd tilaabo xooggan oo lagu xaqiijinayo amniga dalka. hadalladiisa ayaa imaanaya iyadoo Ukraine ay xoojinayso wada shaqaynta dhanka diblomaasiyadda ee ay leedahay xulafadeeda reer galbeedka. waxaanu ku dhawaaqay in taliyaasha amniga ee xulafada Ukraine ay ku kulmi doonaan 3 January waddanka Ukraine si loo mideeyo mudnaanta dhanka difaaca, iyadoo shir madaxeedkan uu xigi doono kaasi oo la qorsheeyay inuu dhaco 6 bisha January ee sanadka fooda inagu soo haya, waxaanu ka dhici doonaa dalka Faransiiska. Zelensky ayaa sheegay in Kiev ay xiriir joogto ah la sameynayso Maraykanka, wuxuuna uga mahad celiyay maamulka Trump ka qayb qaadashada wadahadallada imika socda iyo kuwa soo socda kadib shirkii dhawaan uu la yeeshay Trump ee ka dhacay gobolka Florida. Trump waxa uu muujiyay inuu rajaynayo in Vladimir Putin uu aqbalo hindisaha la soo jeediyey, waxaana wararku haatan sheegayaan in Ruushka laga warsugayo go'aankiisa. waxaan u gudbaynaa goordhow shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada Istanbul madaxweynaha Soomaaliya iyo dhigiisa dalka Turkiga oo si weyn looga hadlay arrinta aqoonsiga Somaliland ee Israa'iil ay samaysay. waxaan kaloo idiin haynaa warar kale oo arrimahaani iyo kuwa kale la xiriira, laakiin aynu ku hakanoo qadar xayeysiin daawadayaan si aad ula socoto una hesho wararkan, barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno. haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn, hadda ku soo biir waadna ku mahadsan tihiin daawashada barnaamijka. weli waxaad la socotaan barnaamijkii qubanaha oo toos idinkaga imaanaya istuudiyaha iyaga koowaad. hagaag intaan u gudbin shirka jaraa'id ay qabteen madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Turkiga oo codadkoodii oo turjuman aan idin maqashiin doono, waxaynu ka hormaraynaa dhanka Mareyka Gaza, iyadoo wadahadallo Washington ay gobolka Florida ay ku yeesheen madaxweynaha Maraykanka iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa wargeyska Israa'iil Hayom waxa gordhawato oo daabacay warbixin la xiriirta in labada nin ay isku afgarteen in muddo 2 bilood loo qabto Xamaas inay hubka ka dhigto. waxaan intaasi ku daray in la dejin doono shuruudo cad oo lagu qiimeynayo wax ku oolnimada hawlahan la xiriira dhaqaaqa hubka. telefishinka Kanaal 12 ee Israa'iil ayaa soo wariyay in dibudhiska magaalada Rafah uu bilaaban doono ka hor inta Xamaas si buuxda hubka ay isan u dhigin. arrintaasi oo ka duwan mowqifkii Israa'iil ee ahaa in aan la bilaabin wax dib u dhis ah ilaa iyo inta Xamaas ay hubka haysato. madaxweyne Trump ayaa sheegay Isniintii in Xamaas ay wajihi doonto sida hadalka u dhigay cawaaqib aad u daran haddii aysan si dhaqso leh hubka u dhigin. Mareyka Gaza ayaa waxaa ka jirta xabad joojin aan caga adag ku taagnayn tan iyo bishii Oktoobar, laakiin Israa'iil ayaa sii wada weerarada goosgooska ah iyadoo ilaa iyo 400 oo qof la dilay tan iyo 10kii Oktoobar, markaasi oo la gaaray xabad joojin su'aal ay gelinayaan jiritaankeeda dadka Falastiiniyiinta. iminkana Istanbul, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo dhigiisa Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa galabta kadib wadahadallo saacado dheer qaatay oo ay ku yeesheen magaalada Istanbul qasriga madaxtooyada waxay qabteen shir jaraa'id. shirkaasi jaraa'id ka hor waxaa la sheegayaa in labada hogaamiye kulan khaas ah oo labada kaliya ay yeesheen. warka soo baxay madaxtooyada Turkiga ayaa lagu sheegay in looga hadlay arrimo kala duwan, waxaana kulankan laga soo saaray war rasmi ah oo la xiriira in Turkiga iyo Soomaaliya ay iska kaashan doonaan arrimaha dhaqaalaha, amniga iyo sidoo kale
xiriirada kobaca iyadoo madaxweynaha Turkiga uu xaqiijiyay in 60 sano laga joogo markii Soomaaliya iyo Turkiga xiriir dhanka diblomaasiyadda ay yeesheen. Haddaba waxaynu ku bilaabaynaa madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan hadalladii halkaasi uu ka jeediyay waxaana ka mid ahaa integrity and the unity of Somalia should be protected. This is a priority for every one of us. waa in la ilaaliyo midnimada dhuleed iyo wadajirka qaran ee Soomaaliya taasi oo ah mudnaanta dhammaanteen inoo wada taal. The recognition by Israel of the Somalia Rendi is illegitimate and it cannot be accepted. aqoonsiga Israa'iil ee Somaliland waa sharci darro mana ahan wax la aqbali karo. The Netanyahu government, who shed the blood of 70,000 of our Palestinian brothers and sisters, xukuumadda Netanyahu oo dhiigooda daadisay 10,000 oo walaalaheen Falastiiniyiinta ah continue with its attacks to many countries in the region like Syria, Yemen, and also Qatar and Libya. And Israel right now tries to drag the African Horn into waxay weli weerar ku haysaa dalal badan oo gobolka ka mid ah sida Suuriya, Yemen, Qatar iyo meelo kale. waxaana hadda Israa'iil isku dayaysaa in geeska Afrika ay geliso qalalaase iyo xasilooni darro. chaos and instability. The countries of the region, like Egypt, Yemen, the Organization of Islamic Cooperation, indeed rejected the decision adopted. dalalka gobolka sida Masar, Yemen iyo ururka iskaashiga Islaamka ee OIC waxay si cad u diideen go'aanka Israa'iil. By Israel. The USA President, Mr. Trump, indeed gave his first statement about this matter, which madaxweynaha Mareykanka mudane Trump isaguna wuxuu bixiyay bayaan muhiim ah oo ku saabsan arrintan. has been quite meaningful. And as Mr. Trump assumed office, isagoo mar kale xusay baahida loo qabo he advocated the global peace vision, which we had advocated as well. isagoo u qareemayay baahida loo qabo ilaalinta nabadda caalamiga ah. All those statements underlining the importance of the territorial integrity and the unity of Somalia is really important because after all we are after a principled foreign policy stance. So taas oo annaguna aan u taagannahay bayaan kasta oo muujinaya muhiimadda midnimada dhuleed iyo qarannimada Soomaaliya waa mid aad u qiimo badan sababtoo ah annagu waxaan ku taagannahay siyaasad diblomaasiyadeed oo mabda'a ku dhisan. Any step which would not contribute to the resolution would deepen the problem and aggravate the problem even further. Tilaabo kasta oo aan xal horseedin waxay si qoto dheer u keeni doontaa dhibaato sidaas darteed go'aanka. So all those decisions adopted about the future of the Somaliland sidaas darteed go'aan kasta oo mustaqbalka oo la xiriira arrimaha Somaliland should reflect the will of the people of Somalia. waa inay ka turjumaan rabitaanka shacabka Soomaaliyeed. During this process, of course, we will continue to support the territorial integrity and the unity of Somalia in a committed fashion, and we will stand by the people of Somalia. inta hawshaasi socotana waxaan si joogto ah u taageeri doonaa midnimada dhuleed iyo qarannimada Soomaaliya waxaana garab istaagi doonaa shacabka Soomaaliyeed. hagaag madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo codkiisa la turjumayay ayuu kaasi ahaa. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isaguna goobta ka hadlay waxa uu yiri Turkey's principled support played a vital role in Somalia's progress towards peace, stability, and institutional recovery. taageerada mabda'a ku dhisan ee Turkiga ayaa door muhiim ah ka ciyaartay horumarka Soomaaliya
ay ku tallaabsatay gaar ahaan dhanka nabadda xasiloonida iyo dib u soo kabashada hay'adaha dowladnimada. We also extend our thanks to our partner countries sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa dalalka saaxiibada nala ah as well as regional and international institutions for iyo hay'adaha goboleed iyo kuwa caalamiga ah taking a firm stand against the violation committed by the state of Israel sida cad ugu hor yimid xadgudubka ay ku kacday dowladda Israa'iil on 26 December this year. 26 December ee sanadkan. In our discussion today, we strongly wadahadalkayaga maanta waxaan rejected Prime Minister Netanyahu's illegal aggression in recognizing part of Somalia's northern regions as an independent state. waxaan si xooggan u diidinay tillaabooyinka sharci darrada ah ee ra'iisul wasaare Netanyahu uu ku aqoonsaday qayb ka mid ah gobolada waqooyi ee Soomaaliya sida dowlad madax bannaan. This aggression and the blatant meddling constitute a clear violation tillaabadani iyo faragelintan waa jibin cad oo ka dhan ah qawaaniinta caalamiga ah of the international law, the Charter of the United Nations, the Constitutive Act of the African Union, axadiga qaramada midoobay axadiga aasaasiga ah ee midowga Afrika and all established diplomatic norms. iyo dhammaan qawaaniinta diblomaasiyadeed ee caalamiga ah. It sets a dangerous precedent and runs directly contrary to the principle of sovereignty, territorial integrity, and non-interference that underpin in all international systems. waxay abuuraysaa tusaale khatar ahna ku tahay oo si toos uga hor imaanaysa mabda'a madax bannaanida dalalka midnimada dhuleed iyo inaan la faragelin. Such actions are creating conditions that embolden violent extremist groups who thrive on narratives of external interference, which now Israel has blatantly. tillaabooyinkan waxay abuurayaan duruufo dhiiri gelinaya kooxaha xag jirka ee rabshadaha sameeya kuwaasi oo qiil ka dhigan kara sheekooyinka faragelinta shisheeye arrintaasi oo hadda Israa'iil si cad ay ugu dhaqaaqday. Taking place. The result is cascading natiijadu waa amni darro insecurity for Somalia and the oo ku imaanaysa Soomaaliya iyo guud ahaan geeska Afrika. wider region of the Horn of Africa, already strained by armed violent extremism, oo markii horeba ay ka jireen culaysyo amni iyo kuwa argagixisnimo hawlo arrimo bini'aadantinimo iyo kuwa siyaasadeed. humanitarian pressures and political fragility, a region where in recent decades stability was a very expensive commodity. gobol markiisi horeba xaaladiisu ay ahayd mid aad iyo aad u adag. Such actions actively undermine stability by inflaming internal tensions within the Somali community. tillaabada caynkan oo kale sidoo kale waxay iska horimaad iyo khilaaf ka dhex abuuraysaa dadka Soomaaliyeed gudahooda, as well as divisions by creating conditions that embolden violent extremist groups that thrive on the narrative of external interferences. At the same tillaabooyin gudaha bulshada kala qaybinaya isla markaasna dhiiri gelinaya kooxaha xag jirka. sidoo kale time, while firmly safeguarding our sovereignty, we annagoo markaa si adag u difaacayna madax bannaanideenna iyo qarannimadeenna waxaan remain firmly committed waxaa naga go'an weliba si adag to our national development agenda. horumarinta ajendayaasheenna qaran. Somalia is taking bold steps Soomaaliya waxay qaaday tillaabo geesinimo ah
in collaboration with Turkey for a major development agenda. iyadoo iskaashi dhow la samaynaysa Turkiga si loo hirgeliyo barnaamijyo horumarineed oo waaweyn. وهجاج مدحونها صوماليا أيو كاسيها وهجاج هذا شكلس الكاس إنه قدومنا واحد يقول بين شكل وقدم بس برنامج كأنه كسو قبل جميع جرني لا واحد كسو قادنا شكل كدوان شكل كبرنامج كأت كسو دعوتين واحد ذي هنا شكل حيسر أو لحريرته وحال أوجادي مقالة كتها الوضع كيوكرين قريها كيال إنه سنتشرين بواحد ودحية قريها يعني اسكو دقيهين اسكو حرسيين طبعا واحد مقشي اسمها اللي يراهدو دربيga shiinaha oo dhirkiisa aad ogteen intuu joogo laakiin waxa ka dartay magaaladan ku taal waddanka Greek guryaha ku yaal hadaba dhismayaashan dhaadheer ayaa waxa la sheegaa inay yihiin kuwa la degan yahay dadku ay degaan oo caadiyanba waxa loogu yeeraa derbiga weyn ee shiinaha waxay ku yaalaan magaalada la yiraahdo Molodishai ee waddankaasi Ukraine dhismahan baaxadda weyn ayaa waxaa la bilaabay 1969 intii lagu jiray xilligii midowga Sofiyeeti wuxuuna dhamaaday 11 sano kadib macnaha 11 sano ayuu dhismihiisu socday muddo aad u dheer kana badan inta caadiga guryaha lagu dhiso mashruucan waxaa nashqadeeyay laba injineer oo waddankaasi u dhashay waxaana la sheegay in ay noqdeen dhismayaasha isku xiriirsan ee ugu ballaaran adduunka oo xitaa aan lahayn wada yar oo laga soo gali karo waxaa la sheegaa in ay ka kooban yihiin ilaa iyo ku dhawaad 2 kilomitir dhismayaashaasi 3,000 oo guri ay halkaasi ka dhisan waxaana la sheegaa 10,000 oo qof inay ku nool yihiin inta badan waxa la yiraahdaa magaaladan waa magaalo yar oo xitaa aan lahayn wada la iskaga dhex baxo waayahay arrin cajiib ah inta ayaan ku soo gabagabeynayaa caawa barnaamijkii qodanaha waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa nabadgelyo